السلام عليكم بعض عافمادك وين سو ورمينا saaka waxaanu nimid waxaanu dhisaynaa la bilaabaya cusbitaal cusub oo ilaa 6 sariirooda oo haweenka oo ay dawladdu maalgelisay intaas waxaanu nimid waxaan oranayaa bahda caafimaadka oo mahadnaqaynaa kuwiina tacliinta bilaabaya iyo kuwa dhaqsarnimada ku gawoobay iyo kuwii ka horeeyay bahda caafimaadka dadkiinu weydin mahadnaqaya waxa la idinku mahadnaqayaa nafta bini'aadmiga badbaadisaan u soo jeedaan dhaqaale badan kuma qabtaan inta waan idin ognahay laakiin inta qabtaan in ka badan baad ka rabaayo ogaada hawsha imka aysaatu ka badan baa la idinka fadhiya dal baynu dhisaynaa inaga ku soo beeganay waxaynu doonaynaa inay cusbitaaladeenu noqdaan kuwa loo soo dawo doonto ee aan dadkeenu diyaaradu raacin dad lamada waxay qabtaan inta taqaaniin in lag bay ka baxeen dadka India jooga caafimaadka inta barteen bay ka barteen dadka qalabka sameeyay kuweena qalabka sameeyaa jaamacadda ka baxeen bay ka baxeen 9 bilood oo ku dhalanay haddana qofka bukaa maanta ee xanuunsanaya marka cusbitaalka Hargeysa la keeno ma aaminsana hatta baarida ma aaminsana iska dhaaf qaliinka waxa laga yaabaa wax yar oo fudud oo dhakhtar kasta qaban karo in laga waan dhufay waa dhibaataynaas waxaanu doonaynaa haddaynu caafimaadka wasiirka ku xigeenka dhakhtarka neeraska maamulaha adeegaha caafimaadku inuu xilisa saaro inuu dadka ku soo celiyo inay aaminaan shaqada qabanaysaan inay la mid tahay ama ay ka fiicnaato kuwa dibadda lagu qabanayo taasi waxay ku imanaysaa qofka waxa deeqa waxa la waxa cuntada deeqaysa arageeda ka garta markaan cusbaalka soo galo igu horeysa ee la keeno outpatientka qod dadka shaqaynaya qaabka ay la dhaqmaan ayaa ay deeqaysa inaan ku doobiyo kale adigoo waxa loogu soo horeeyaa waa nurse iyo askariga waardiyaha iyo qofka habeenka shaqada leh qofkii isagoo aqoontii leh oo shaqo fiican qabanaya haddana soo galo waliba inamada nurse aan sheegaya marka loo soo galo isagoo qayilsan isagoo qaylinaya isagoo faraha ka gelinaya qofkii bukay qofku wasasaya meesha dhaqsarmaha waranaya waxa tiisay caafimaad tari maayo tan waxaan qeyshanay war meesha waa meel baase meel la isku daweeyay ma aha meesha laga qaado marka aqoontaadu waa dishay kalsoonidii waa dishay dhaqaale qaranka waa dishay waa maxay waa wajiga u horeeya wasiirka yagaas waxaan isku haysanaa wixina kale iga daaya dadkan idin shaqeeya disbilin yeeshaan ha u muuqdaan dad dhakhtar ka shaqeynaya intaas baan isku haysanaa maalin walba way fiican tahay intaas shaqaalaha qoray intaas qalab keenay maxaa ka 15 hadii qofkii narsaan ka cararayo hadii dhakhtarkii sidoo ilaahay hadaya baan ka cararayo haddaan dhakhtarkii iima sheegi kareen waxa qabo waxaynu u baahanay inaynu bedelo dhaqankeena shaqaalaha caafimaadka sidoo kale ka bulayska sidoo kale ka shaqaalo dhan ila dadkeenu adeegnaa soo maaha adigu waa tacabtay waa soo jeeday mushaar waan sar ma qaatid dalkaaga sida khutar laakiin waxa dilay habkaad u dhaqmayso marka waynu taa wax ka qabana laba mar haddaad ibtoonayso waxa laga yaabaa inaad 20 sano 10 sano dhakhtar neers ku shaqeynayso oo dhaqaalaha waa loo saaray mar haddaad tabcayso mar haddaad waqtigaaga dadkaaga siirayso dadkaaga si barakale uu aaminansanaado uga dhaqadee ilaa waana tacabtay dadka way iska haysteen maxaa soo kordhay qodobka labaad waxa weeye dadka cusbitaalka la keeno cusbitaal marka la keeno in cusbitaalku uu shaqeynayo oo haddii dhakhtarkii la keeno kaadisa cusbitaalku qaadayo oo uu nadiifinayo oo uu dhaayayo oo intaaba dadka shaqaalaha u qabanayo oo dad u soo jeedaan u tababarayeen waa in la baraa dadka ehelka daba socda waxaan ugu tiraahday bacteria la kala qaadaa qofka bukaa soo dhawaana soo ma tiraahdaa soo farxashan taa soo ma marka qofka qalan sanka xirtaa soo ma taaniga oo qaba habatabi baa u imaanay dhakhtarka dul fadhiya marka waraba kii beeshaga oo dadka baxoro karin anu habatabi qaba cunto u keenayo siinaya neeraskii caafimaadka qaru jooga waa leeriya saama caafimaadka kordhaya inta laga cararaya waa inta waxa la tagay waxa ii shaqeeyay neersad malaa'ig moodo oo hadlaynin waxa galii rogay waar kuwanba waa la mid oo way noqonayaane horta marka hore ma isiiman sanaba ka horeysa marka shicibka dhakhtarku waa disbilin yeesha qofku uu bukaa dhig ka bax ehelku waa inuu aaminataa waxaanu ku aaminay marka hore ka arkade markuu idinka ka arko ayuu baa aaminaya laakiin hadduu ka iman qaba qofka neerska ninka uu ka tagaya oo qofka buka daweyn maayo
oo dan kama laha hadduu aaminsan yahay dee ka tegi maayo udur fadhiya kiina uu qaylinaya wuxuu leeyahay laga qaaday lacagta inaga baxada diyaaradaha India lagu tagay fiisadu cusbitaalada adduunka u wanaagsan baa ka dhisi lahayd annagu qaybta waa ka qaadanaa dadka inaynu soo rogno idina qaybtiina ka qaata hada caafimaadka tiin marka waa in cusbitaalka nidaam loo yeeraa oo idinkoo tabacay taabkiina soo baxa oo idinkoo shaqeynaya aan haddana dal leedin dhibsano waxay ku raayaan meeshu dhakhtarna ma aha waxba ma jira warsoodna la shaqeynaya waayadar aqli miyay tahay nin meel furtay laba maqsin afar maqsin qof furtay oo idaacada ka xayisiiyay inuu cusbitaalka qaranka hor biskutay ka wanaagsanaado laga aamina macqliba meena taab khasaar ay nagu dhamaantiin tawaan xoogeena isu geena marka xilba saaray xaga ogaada madaxda timid madaxda waxaan ugu leeyahay in dhalishan oo sheego laakiin si aad soo sheega way si loo kala cawdaa deel isku absi karo balka warar ina kaaga yara tiri war iskuulka tagay guriga ku dagaalmaado hooyadii xagee la tagay wasiirku wuu qaldami karaa waa binaadmi madaxweynuhu wuu qaldami karaa agaasigu wuu qaldami karaa waxaan doonaa qaladkayga si aqoonad inuu soo sheegno waxa tabarayso waa bishaarada anagu yar war shaqada anagu badan dadka wada shaqeeya midna uu shaqeeya midna ma shaqeeyaan la sibin ee ka shaqeeya xaqiisa la baray kii dadaalay anagu yaran mahadsan la ilaado kii aan dadaalay hal canaanto war ma shaqeeyay ama gabadhay ma shaqeey marka waxaan doonayaa inaynu behavior dhaqankeena attitude-ka caafimaadka ee ku dhaqanin wax ka bedelo aqoontii waan leeyahay waa dadaasheen iskuulaha soo marteen qaar baa weligood meesha shaqeynayay oo ku gaboobay oo naftooda huraayay waa in dadku ogaadaan waxay qabteen dadkana waynu baranaa disbiinka dhakhtarada waxaanu jeeraynu soo tiro waxayna hagaagsano cusbaala inagu dhisano maanta Soomaaliland lacagtii oo haysanaa lacag badan oo cusbaal ku dhisano dalku u leeyahay lacagta shirkadu ayaa waa tii qaranka tadawladdu haysa waa tii qaranka xoogii aqli waynu haynaa maxay naga maqan wata shiga isku sooridii maalmo baaxan barna cusbaal yaro sidoo kale oo imaarad iyo yahay inuu faata wayna caawashay Turkiga boqolku maxaan u falaa boqolku Turkiga bilyan soo bixiyaadee boqolku waa maxaa sadaqay oo uu bahdaqna waleeda cadda hay'adiyana maxaan isay 20 kun buu dhisay waa ceeb waxaas war waxa naga qabsan kara maxay sawaalay wax aan sameeyay waxaanu geeridii hadii kale waxaanu qaadnaa dad aad u liita moogta waan inta ka baxraadii meena saahayn wasiirada ama ba sabaroosto dhakhtarkiina ugu horeeyo Greece Soomaa waxaan ku amray markay bukoodaan halkaas la dhigay waa dhigto waysa goorma sabada xuluulka xamsa waa la cararaya dadka la dooyo dadku ma aaminayeen waanu dano iska bilowna haddaynu isaamin weyna meel qoraysa gashaan waa inuu wada hadalnaa waa inuu wax soo sheegnaa waa in madaxii majlis mid boona waa inaynu isfahamnaa ila madaxda haddii ayna wada socon maxaan wax ku noqonaya haddana ayna wada socon oo inaan soo wada kalsoonayn waanu kala lumaynaa dee dhuxdhuxdeena waxaan iska daynaa qabyaaladana meel walba inaga soo gashay imika waxaan yar jiraan ilaahdeen askar waa qabyaaladista waayo dee annaga cidina seer jirin ma jirto mid annaga waxa ma qalo deereekino seer jirin malay waa fact waa waxyaalay meeshan tiyaatarka dee reer uma gala iyana carbeed afar isku reer wax qala taniyo hadaba reer dee dhakhtar ma keen wax qala maxay yaala dee mid been gal ka soo qaadna qalbaan waa reer okay haddii kale waa isku ixtiraamnaa aqoontiida waa la isku ixtiraama waad la yaabtaa wax lagu oranayo marka cusbitaalada ariga barayso cusbitaal dhakhtar noo keen dhakhtarka waa inuu annaga ahaada dee inaad specialist ma hayo waa dhibaato soo baxday waxa la inanta neerska hebel shaqaysaa waayo bashuur tiyaro xun reer hebel loo keeno noo waana cor hada maxaad ku ogaatay irbad bay ku sheegaysaa maxaa ka galaaday cudurkaana waa in dhakhtar waa inuu iska saaraa inagu qolana dawladda la yiraahdo bahda caafimaadka tii shiribka ka sii hooseeya agaasimaha Hargeysa cusbitaalka Hargeysa qolada ka sii hooseeya waxa waa qaybta waarka dumarka shiribka yara hooseeya qolada ragaati aad aad mahadsan madaxweyne soo dhawow hospitaalka waxaan u siiyay bilad sharafkan iyo aan u soo diyaariyay iyo shahaado sharafka madaxweyne wuxuu la soo qaybsaday jiidii hore ayuu dareenkiisa la soo qaybsaday wuxuu muujiyay geesinimo wuxuu muujiyay daacadnimo iyo muwaadinimo madaxweynaha daad aweed baan u siiyay aan uga faa'iideystay saacadahan uu nala